نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisadeenna maanta waxaan kaga sheekayn doonnaa insha allah qoomkii nebi nuux calayhi salaam. nebi nuux calayhi salaam waxaa la sheegaa inuu dhashay 126 sano kadib dhimashadii nebi aadam. sidaasi oo kale kutubta ahli kitaabka waxaa ku xusan oo ay sheegaan inay u dhexaysay dhimashadii aadam calayhi salaam iyo dhalashadii nuux calayhi salaam 166 sano. si kastaba ha ahaatee nebi aadam iyo nebi nuux waxaa u dhexaysay sida uu sheegay suubanaheenna nebi muxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee 10 qarni. 10kaas qarni oo u dhexaysay aadam iyo nuux dadkii noolaa oo dhan waxay ahaayeen muslimiin oo waxay ku dhaqmi jireen islaamnimada. intaasi kadib qoomkii nuux waxaa ku dhex jiray rag saalixiin ahaa oo dadka bari jiray cilmiga islaamka. raggaasi waxaa lagu kala magacaabi jiray wad, suwaac, yaquus, yacuuq iyo nasar. waxay lahaayeen arday tiro badan oo ka qaadan jiray cilmiga iyagaasi. raggaasi markii ay geeriyoodeen ayay ardaydii waxay yidhaahdeen haddii aynu samayno sawir lagu xasuusto macallimiinteenna waxay nagu dhiirigelin doontaa inaan si fiican u caabudno alle markaan iyagaasi soo xasuusanno. saaraggii ardayda ahaa sawirkii ayay sameeyeen. markii ay dhinteen iyagaasi oo faracyadoodii kala yimaadeen ayuu ibliis wuxuu u sheegay in aabbayaashoodii hore ay caabudi jireen oo lagu roobsiin jiray. markaasay iyagiina bilaabeen inay caabudaan sanamyadii. waxaa sidaasi oo kale la soo wariyaa markii uu wad geeriyooday oo dadkiisii aad ugu murugoodeen qabrigiisa dushiisa ayuu ibliis isaga soo dhigay qof caadi ah. markaasuu ku yidhi waxaan arkaa inaad aad u jeceshihiin ninkaani. ma idiin sameeyaa sawir isaga u eg oo aad ku xasuusataan? saa waxay ku dhaheen haa. kadibna sawirkii ayay ka taageen golahoodii ay isugu imaan jireen. saa ibliis wuxuu mar kale u sheegay inuu u samayn doono taalo yar oo guri walibaa la dhigan karo si mid walibaa u soo xasuusto ninkaasi saalixa ahaa. markii ay guryaha dhigteen oo fac ka fac sawirkii guryaha yiil ayaa waxaa yimid fac kale oo garan waayeen waxa taaladaasi guryaha u dhex yaalaan. kadibna waxay bilaabeen inay caabudaan sanabkii wad ahaa. haddaba axadkii ama qofkii ugu horreeyey ee la caabudo alle ka sokow wuxuu ahaa wad, waana sanab ay ku magacaabi jireen wad. soo diristii nebi nuux calayhi salaam. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. xaqiiqdii waxaan u dirnay nuux qoonkiisa annaga oo leh u dig qoonkaaga intaysan u imaan cadaab xanuun badan. markii uu fasahaadkii batay oo dadkii ay bilaabeen inay caabudaan sanamyadii guryaha u yiil ayuu alla weyne wuxuu u soo diray nuux calayhi salaam rasuul ahaan. wuxuu bilaabay inuu dadkii ugu yeedho inaysan caabudin waxaanan alla weyne ahayn, kaas oo aan lahayn shariik iyo mataal. wuxuu ka reebay shirkiga iyo inaysan wax la gees iyo barbar caabudin alla weyne. qaala yaa qawmi innii lakum nadiirun mubiin. nebi nuux wuxuu ku yidhi iyagii qoonkaygiiow
xaqiiqdii anigu waxaan idiin ahay diga cad أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون waa inaad caabudaan allaah keliya baarin u ahaataan isaga oo aad adeecdaan saaqoomkii nuux waxay la yaabeen sidee buu qof bini'aadam ah ku noqon karaa rasuul waxay haddana fiiriyeen dadkii raacay nebi nuux calayhi salaam waxay ku tilmaameen dad aad u liita oo nolosha ka dhacay waxayna bilaabeen inay cadaadiyaan nuux iyo intii raacdayba waxayna ugu dambayn ku handadeen inay dhagaxayn doonaan oo magaalada gebi ahaanba ay ka saari doonaan قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين duqaydii qoonkiisa ka mid ahaa waxay ku yidhaahdeen xaqiiqdii waan ku aragnaayo waxaad ku jirtaa baadi cad قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين nuux wuxuu ku yidhi qoonkaygiiow iguma jirto baadinimo laakiin waxaan ahay rasuul ka socda rabbiga uumanka dadka jinka iyo dhammaan waxa jira أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون waxaan idin soo gaarsiiyey fariimaha rabbigay oo aan idin siiyey idinka talo wanaagsan waxaan ka ogahay xagga alleh waxaydaanan idinka ka ogayn saa nebi nuux calayhi salaam mar kastaa uu fariin iyo waana uu u sheegayo ayay waxay bilaabeen inay dhagaha farta gashtaan oo wejiyadooda ay mara ku daboolaan iyagoo aanan doonayn inay maqlaan wuxuu uu sheegayo nebi nuux calayhi salaam maxaa yeelay waxay u arkeen qof waalan markaasay ku yidhaahdeen nuuxow ha iswareerin innagu ka tegi mayno ilaahyadeenna kala ah wad iyo suwaac yaquus iyo yacuuqba muddo dheer kadib in yar oo qoonkiisa ayaa rumeeyey nebi nuux calayhi salaam markii uu fac tagaba facii kale waxay carruurtooda kula dardaarmayeen inaysan maqlin nuux calayhi salaam oo aysan rumayn bal inay la diriraan ooy didaan isaga warkiisa markii uu wiilka ama gabadha ay qaangaartaba waalidkooda waxay kula dardaarmi jireen inaysan raacin nuux calayhi salaam waxay middaasi u noqotay caado iyo dabeecad inay didaan xaqa muddo dheer kadib ayay qoomkii nuux waxay ku yidhaahdeen nuuxow waa nala dooday oo waxaad badisay doodeennii haatan noo keen waxaad nagu handado haddii aad ka mid tahay runlowyada قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين nebi nuux calayhi salaam markii uu la yaabay qoomkiisa madax adeegoodii iyo dalabkoodii ahaa inuu alla weyne cadaab ku soo dejiyo balse ay u arkaan in uu rasuulkii alle yahay ayuu wuxuu ku yidhi قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين nuux wuxuu ku yidhi alle keliya baa keeni doona iyada cadaabta ah korkiinna haddii uu doono marka kama baxsan doontaan nebi nuux calayhi salaam markii uu qoomkiisa kor iyo hoosba ula hadlay oo uu ka daalay yeeriddoodii ayuu alla weyne ka dalbaday gurmad si uu u baabi'iyo dhammaantood وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا oo nuux calayhi salaam wuxuu yidhi rabbigaygiyow ha kaga tegin ruux ka mid ah gaalada dhulka korkiisa إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا haddii aad sii dayso iyaga waxay dhumin doonaan addoommadaada oo ma dhali doonaan waxaanan ahayn gaalo shar badan intaasi kadib ayuu alla weyne rasuulkiisa ku amray inuu dhiso doon aad u weyn oo uu ku qaado intii isaga raacday iyo qoyskiisa muslimiinta ah
wuxuu alla weyne rasuulkiisa u sheegay inuu u soo diri doono gurmad oo aanan horay loo arag, midkaasi oo u ciqaabi doono qoomkiisa si aanan horay loogu ciqaabin aadanaha oo dhan. la soco qaybta labaad ee ku saabsan qisadii Nabi Nuux calayhi salaam. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا